ولا لورت ودريمي كتا قف aad jeceshahay muddo dheer kala naqneedeen oo 7 sano aad sugaysay waxa arin mucjisay way arinta kala kulmay aniga ahaan waxa la qabo labeen waa gartay ayaan kala kulmay wiilkii maadaama uu labeeb yahay oo raggi iyo dumarkiba waxoodii uu wada u sido ma dhinaca boodi ahaan buu u badan yahay dhinaca dumarka mise dhinaca ragga waasbe dhinaca dumarka mise dhinaca ragga waasbe dhinaca dumarka mise dhinaca ragga waasbe 7 bilood oo ay sugayda kadib markii ay guursatay oo la aqal gashay waxa ay ogaatay ninka ay guursatay in uu yahay labeeb ama uu isku darsan yahay jinsi ahaan rag iyo dumar haddaba gabadhan Soomaaliyeed ayaa arintan naxdinta leh waxa ay kaga warantay gabar kale oo YouTuberad ah iyadoona arrinkeedan la wadaagtay haddaba daawadayaal waxaan idin la wadaagi doonaa muuqaalka gabadhan haddaba inta aan u galin barnaamijkan haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreeyay ee channelkeena fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarato si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino helitaanka daawadayaasha YouTube-ka ayaa sababtay in dhaqamo badan oo Soomaalidu horay u lahaayeen laga tago haddaba daawadayaal waxaan idin la wadaagi doonaa muuqaal 2 gabdhood oo Soomaaliyeed oo ay midna wax wareysanaydo midda kalena la wareysanayo haddaba gabdhahan ayaa waxay ka hadlayaan in mid kamid ah 2 gabdhood ay tahay dhibane kan kalena ay tahay qofka dhibanaha wareysanayo iyagoo markaasi ka hadlaya in gabadhan Soomaaliyeed ay guursatay nin hase yeeshee waxa uu ku noqday wax aysan filanayn haddaba daawadayaal ma doonayo in aan idinkaga hordhaco ee bal aynu isla daawano muuqaalkooda ولا لورت ودريمي كتا قف aad jeceshahay muddo dheer kala naqneedeen oo 7 sano aad sugaysay waan gartay oo markuu qofkii aad isku imaateen wala loo dhibaato aad kala kulantay waxyaal aad filanayeen haya marka arintan aniga walbahaar iyo walwal iyo inta qof islaam oo siiba Soomaaliyeed oo gabar ay waxay dareemi karto xanuun ayaan dareemay oo kula dareensanay waan gartay arintan aan la kulmay والله أرين أنا حمود بدن وايه ملكي أسرعها وحوايه أرتو حتى وصلنا وهاي وصل جبنا لكن أنا جا والبهار يجرو تاسيو كم يتهاي وحياة أنا كفيلين هنا يعني كلكم من ويلكي بسم الله الرحمن الرحيم ما قرت مرك والله وقت أرين بجسء ويعني تام كلكم من هان waxa kamid ah walaalo waxa la qabo labeeb aniga hadda horaan waan maqlay laakiin waxaan arkay ma waanba waa gartay ayaan kala kulmay wiilkii waxa la dhaho haddaba gabadhan Soomaaliyeed ayaa sheegtay in ninka guursaday uu ku noqday labeeb haddaba waa siday iyagu warka u dhigeen bal daawadayaal aynu mar labaad isla daawano iyagoo noo sharaxaya macnaha labeeb iyo waxa laga wado maadaama in badan oo daawadayaasha kamid ah aysan fahansaneyn walaalo labeeb waxa kamid ah waxa dumarka ku yaalay waxa ragga ku yaalo markii la isku geeyo dadku waxay dhahaan labeeb qofkaas waa labeeb marka la isku geeyo macna ahaan waxa ka wadaa qofkiiba labadiba wuu wadaagaa labadi wax buu leeyahay walaalo bismillaahir rahmaanir rahiim waan gartay marka waa kaas waxaas ayaan kala kulmay walaalo waxaan rajaynayaa in aad daawatay oo aad fahan dheer ka qaadatay haddaba daawadayaal waxaan rajaynayaa inaad fahan ka qaadatay macnaha labeebka waa sax oo sida ay sheegayaan waa ay tahay labeebku waxa uu ka kooban yahay labada jinsi ee ragga iyo dumarka waana abuuris Ilaahay ee ma ahan wax qof bini'aadan ah lagu ceebeysan karo haddaba haddii halkaas aanu intaas kaga gudubno gabadhan ayaa mar kale waxa ay sharaxaydaa sidii ay ku ogaatay in uu ninkan u yahay labeeb iyo sidoo kale rag iyo dumar midka uu u badan yahay shakhsiga ay guursatay والله قفكو وقف عادي ولا إجيهاي لكن مركي أنا أهان أحطي سأنسي كلا ودريم كتا لا بقف مركي اسكت مع نهار إيه وداعي يعني سماها وان كرته مركو والله حطي سأنسي كلا أنا وحو إلى كذا بالحكي تمركي وبدني هذا والله حملها ترنكا طيب يعني رأي تمر با ويكردوين سماها صحويان markaan taas xogtaas kala ayuu wuxuu ila ekaado markaan taas yiri inuu xagga
dumarku u badan yahay. haddaba gabadhan Soomaaliyeed ayaa mar kale waxaa la weydiinayaa inay ninkan weydiisay qaabka uu yahay, hase yeeshee maxay ku jawaabi doontaa, bal aynu isla daawano. waxaan weydiiyey malaha walaalo aniga waa argagax igu dhacayba. waan gartay. waxba ma weydiinin ba aniga ma isku naxay markaan arko walaalo. xasbunallahu wa ni'mal wakiil. walaalo arrintan arrin waxay ahayd oo express yani wax filawaa walaalo ayay ahayd. markuu halkaas jiran aniga waxba ma ii sheegin. markii hadda aan isku imaanana walaalo wax uu ii sheegay ma laha. markii labada qof ay nolol wadaagaan isku imaan waa dareemi kartaa nolol bay wadaagayaan. waa sax. markaan arkay nolosha unba aniga nafsadeeda argagax igu ridana aniga hadal waa iga soo bixi waayo walaalo. waan gartay. waxaan dhahay maba lahan walaalo asaguna muuba hadlinba walaalo. waan gartay. ilaa hadda waan wada joognaa laakiin niyadeeda walaalo qof fadhiga mabaahan ba aniga ahaan. walaalo dadweynaha waxaan ka codsanayaa in adiga isaga Soomaali bal inay arrintan mucjisada igu dhacday inay ra'yiga siiyaan wixii talaa ila wadaagaan si aan wax ka yeelo. horta aniga go'aan dhaqso kama qaadan karo. waa qof aan jeclaa waa dareemi kartaa qof dad dheer aad sugaysay haddana aad kala kulantay walaalo barnaamijyadan naxdinta leh. waan gartay. waxyaalaha naxdinta leh argagaxa aniga nafsadeeda aan ka qaadayba. waan gartay. go-aan kama gaari kari bal ra'yi waxay isiiyaan ayaan arkaa dadweynahana waxaan ka codsanayaa wixii talaa inay isiiyaan walaalo. hadda markaan isku imaanay muddo 3 bilood baa hadda isla joognaa. 3 bilood hadda isla joognaa. waan gartay. waan gartay. haddaba daawadayaal waxaan rajaynayaa inaad kilibkan daawateen. gabadhan Soomaaliyeed ayaa sidoo kale sheegaydo in ninkan ay weli jeceshahay, jacaylna ay u haydo, ayna garan la'dahay go'aanka ay ka qaadato. haddaba daawadayaal markii aan muuqaalkan bilow iyo dhammaad arkay in gabdhahan Soomaaliyeed arrinkani ay u soo diyaariyeen sidii ay daawadayaal kaga heli lahaayeen YouTube-ka, arrintan ayaana ah mid aad u foolxun. waxaana gabdhahan kula talinayaa in ay wax kale uga fiican ay raadsadaan. talada aan idin siin karo waa midaas oo qura. dadka Soomaaliyeedna waxaan rajay doonaa muuqaalka inay daawan doonaan, fahan dheerna ay ka qaadan doonaan. haddaba wixii fikirkaaga ah barta commentiga kusoo qor. halka aad muuqaalka ka daawanaydaan waa janalka Haldoor Media. haddii ay tahay booqashadiinii ugu horreysay ee janaalkeena, fadlan ha ilaabina inaad subscribe saartaan sayna idiin dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino.